waxaan nagala jooga wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka sidaad ogtihiinba war-saxaafadeedkii madaxweyne shariif xasan sheekh aadan uu isku casilay waxaa ku jiray qodob dhahaya in daadihinta doorashadan ay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ay leeyihiin sidii doorashadan loo hagi lahaa marka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka joogto oo rabto inay waxyaabaha technicality-ga ah oo farsamada ay ka caawiso baarlamaanka iyo guddiga la dhisi doono ayagana ilaahay idinkii goobjoogayaal u ahaanayaan in dhinaca farsamada iyo ay ka saacideeyeen haddii alla ku ruuyahay waxa la yiraahdo capacity building sida loogu sameyn lahaa guddigaas wasaaradda arrimaha guduhu waa hagaha iyo waxa socdo oo process inay processku si fiican u dhaco waa tan ogaanayso laakiin baarlamaanka koonfur galbeed iyo gudoonkooda iska leh doorashadan reer koonfur galbeed Soomaaliya wasaaraduna goobjoog bay ka tahay wasiirkeedii baa joogo inteena waxaan ka midaysanaa reer koonfur galbeed Soomaaliya meesha ay hadda joogaan inay hore uga sii dhaqaaqaan doorashada koonfur galbeed Soomaaliya waxa iska leh gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayagana saxaafadda la wadaagi doono ayagana cid allaali cidii ay khusayso kala hadli doono waxaan rabnaa inaanan ka hor dhicin laakiin waxay xaqiijiyeen kulankii odayaasha iyo gudoomiyaha ama madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha guduhu doorashadu ay si wanaagsan u socoto processkii la soo bilaabana uu ku dhamaan doono meel wanaagsan oo ay dadkeenu dawladnimada ay hadda haystaan hore uga sii soconayaan 17 November su'aalaha qaar waa idinkaga jawaab haddana waa ku celinaa dib u dhigidda doorashada iyo waqtiyeynteeda waxa iska leh baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo gudoonkooda iyadoo ay ka kaalmeynayaan odayaasha dhaqanka talooyinkooda iyo wasaaradda arrimaha gudaha goobjoogka ah waxa meeshan ka socda su'aal celisay dawladda waqtigeeda aad u mahadsantihiin